Kani waa Axmed Cali Siciid, waa wiil yar oo 16 jir ah. Axmed calooshiisa toddobaadkiiba hal mar ayaa laga shubaa 4 litir oo biyo ah. Axmed ma awoodo jiifka, fadhiga iyo istaaga. Furaashka dushiisa ayaa lagaga qaadaa kaadida. Axmed dhakhaatiirta magaalada Hargeysa iyo kuwa Itoobiya waxa ay sheegeen in ay xididada wadnuhu dabceen, dalka gudihiisana aan waxba loogaga qaban karin. Haddaba waa kan Axmed oo ummadda muxsiniinta ah si naxariis looga codsanaya in ay soo caawiyaan. magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cali Siciid. biyaha calooshayga jira xanuun badan bay igu hayaan. markaan seexanay naqaskaygu dhagay ma jiifsan karayo. jiifkana ma xamilayo, waan iska soo fadhiyaa inta badan. ummadda muslimka ah kaansanayni iga soo caawiyaan xanuunka. alaha muslimiinta waxaan ogeysiinayaa lambarkayga waa kashaashada ka muuqda. wixii caawi maalka ay igu soo diri karaan igu soo dira walaalayaal. Tani waa hooyo Xabiibe Maxamed Axmed. waxa ay ummadda muxsiniinta si naxariis looga codsanaysaa in ay garab ku siiyaan sidii ay Axmed u geyn lahayd dhakhtar dibadeed. muddo imika 2 sano ayuu ilmahaasi bukay. waanu haddii la odhanayo magaalada Hargeysa adigu malaal ilaa 30 dhakhtar oo digtoora waanu ka marinay. waxay isku raacsan yihiin digtooradaasi inaan ilmaha wadnaha biyaha sii daynay, waxaan ku sii daynay caloosha. biyaha inanka waa laga shubaa ilmaha, waxay ka shubta dhakhaatiirta kaanu geeyaa wuu xidhaa igula taliya horta biyaha ka soo shub. dabadeedna biyaha ama 2 litir ama 3 litir ilaa 4 litir way ka shubaan. haddana waxay ku leeyihiin wax ka badan baa ku jira, ma degaan. marka in yar ay toddobaad gudihii maqnaadaan bartoodii bay tagaan oo ay soo noqnoqdaan biyuhu. marka inaan wuxuu dareemaa mudniin ay mudayso oo ooftu ay qabanayso kale ay kor u mudaan biyuhu markay bataanay inaan gaadhaan oofta. dabadeedna naqaskaa qabta oo ku dhega. dabadeedna dee haddana wuxuun bay naftu tiraahdaa haddana ka soo shub. wuu yara nafis haddana toddobaadka haddana waan celiyaa. marka wixii biyo dee socdo oo aan istaagaynin inay yihiin ayaa meeshii muuqata. dhakhaatiirtuna sheegaysaa dadka islaamka ee walaalaha waxaan ka codsanayaa wixii wax ku tari karaya ilmaha inay wax igula taraan ay caawiyaan ayaan ka codsanayaa dadka walaalaha ee islaamka.